saddexdaan nin aad arkaysaan waa saddex nin oo eedaysanayaala oo ajnabiya oo afrikaana marka jinsiyadahooduna waan haydnaa way noo qoran yihiin nimankaas waxaa lagu soo qabtay qalab aan u naqaano inay ka samaynayeen lacagaha haddaa la idhaahdo dawladuhu isticmaalaan ama teena ha noqoto ama ta waddamada kale ee aanu jaarka nayba ha noqotee wax laga samayn karo oo qalaba ayaan ku soo qabannay marka warkooda oo faahfaahsan waxaan kaloo doonayaa inaan idin tuso wax ka mid ah qalabka lagu soo qabtay oo loo yaqaano qalab dembiyeed markan waa eedaysanayaal qalabkaasina waa qalabka dembiyada ee lagu caddeeyo ee qofkan ku eedaysmayo halkaa waxaad aragtaan aada horena muuqaalla uga qaadeen ragga halkaa taagan oo tiradoodu ay 3 tahay magaca what's your name you are from your name please you are from John from Nigeria saddexduba saad maqlaysaan waxay ka soo jeedaan dalka Nigeria eedda halkan loo keenay waxa weeyaan qalabka halka aad ku arkaysaan waa qalabka laga sameeyo lacagaha hawl badan iyo tabar badan oo la geliyey awgeed ayay ku suuro gashay ragga eedaysanayaasha ah inay soo galaan gacanta immigrationka habeen saddexaad goor habeen barkii ah ayaa saddexdaa nin mid walba location gooniya ciidanku ka soo qabteen oo saraakiishu ku hawl jireen waxaa kaloo jira dad muwaadiniin ah oo hawshaa intii aanu ku dhex jirnay iyagu nooga xoogaalsanaa oo nagala shaqeeyey nana siiyey xog badan oo aanu ku hawlgallo iyaguna qayb saddexaad qayb labaad bay ahaayeen oo ciidanku ka hawlgalay si ma garanaysa dadaal badanna ku suuro geliyey arrintaas taasina waxay dhacday shalayto gelinkii hore xalayto oo bishu ahayd xalay oo bishan 12 ay 6 ahayd abaaro 1:15 ayaa la qabtay qalabkaas kaasoo muddo badan iyo meelo badan iyo wareeg badan ku suurta galay in ciidanka gacantiisa soo galo qalabkaasi watan haddeer idinku lahaa wax fara badan oo coosho meel yaalla oo muuqaal weyn samaynaya maaha laakiin waxa weeyaan wax macno weyn samaynaya sida aanu ku qaadanay waan la socodsiinay ciidanka haddii la idhaahdo banka Somaliland waanu la socodsiinay in dad hawshaa ku jira lacag samaynta ay jiraan oo ay ka digtoonaadaan dadka lacagta ku hawlan ee caasimadda jooga iyo gobolladana ay la socodsiiyaan oo baankuna arrintaa u ka warqaba waxaa halkaa yaallaa waa wax dhaqaalaheenna intaynu haysanaba lagu shuban karo oo ay ku geli karto gacanta nimanka halkaa jooga Nigeria ka yimaadeen nimankani Somaliland bay joogaan distance-ka u dhaxeeya intaa waa taqaanaan bilaash umay soo socon waxay u yimaadeen inay wax weyn
oo hanti oo aanay lahayn ay gacantooda geliyaan oo ay ku maydhaamaan dhaqaalaha Somaliland. dawladaha kale aanu jaarka nahay iyagana waa u halis. waxaweye ciddii maqlaysa warkan maqlaysa maanta ee dhegaysanaysa way khusaysaa iyagana inay ka digtoonaadaan ayaa lagama maarmaana. haddaba waxani maaha wax Somaliland maanta ka bilaabmay iyo bishii hore bilii hore arkayseen dadkan oo kale in la qabtay wax bilaabmay maaha, wax caalamka ka jira weeyaan oo ragga qaabkan u shaqaysta dadka sidaan u ceeshaa wixii ay meeshii ay uga suurta gasho inay hantidaas sameeyaan oo ay ku qaataan lacagaa dalku leeyahay. Maraykankana way ka dhacdaa, Yurubna way ka dhacdaa, Afrikana way ka dhacdaa, laakiin innaga waa waxyaalaha inagu cusub imika. waxaanan aada ugu faraxsanahay aada iyo aada ugu faraxsanahay bishii hore saxaafadda waan u baahinay 6 nin oo iyagana halkan la keenay oo saxaafadda qaarkood waa joogeen bay la tahay oo sidan oo kale loogu soo qabtay qalabka lacag samaynta. marka kumay guuleysan in lacagteeda abuuraan oo ay ku qaataan, kumay guuleysan. waxaanay ku jiraan processkii xukunka maxkamadaha. kuwana kumay guuleysan inay wixii ay u yimaadeen dalka inay sameeyaan, sidoo kale kumay guuleysan. taasaa mahad weyna inaan maanta lacagaa dalkeena lagu doorsado oo dalkeena lagu sameeyey oo nimankaasi hirgeliyeen inaanay jirin. 100% baanu ku kalsoonahay markaan xoogaanu nahay goorta yimaadeen, intii ay joogeen, halkii ay mareen iyo wixii ay qabteen aanu la soconoon ka warhayno. waxaanu ku kalsoonahay inaanay samaynin waxba, laakiin trialkii ay wadeen aynu ka gaadhnay. ilaahay mana loogu mahadiyaa. waayo dhaawacina gaari bay noqon lahayd haddii taasi dhacdo. dhaawac dhaqaalehena gaari bay noqon lahayd. waxaan jecelahay dhaqaaluhu haddii dhaqaalaha lagaa weeraro si fudud baa laguu jebin karaa. xooggaaga iyo siyaasadaada iyo hadafkaad leedahay intaba si fudud baa loo jebin karaa. marka ilaahay mahadii ciidamadu way foojig yihiin. maalin walba tan oo kale ama wax ka duwan oo dembiya ayay gacanta ku dhigaan. waa wax ilaahay loogu mahadnaqo inay ciidamadeenu ku baraarugsan yihiin wax kasta oo dembiya oo dhici kara, ama qof la dila ha noqoto, ama lacag la sameeya ha noqoto, ama wax kale oo haddii la idhaahdo dembi noqon kara ha noqote. waxaan ka hadlaynaa waa amni. dhacdadan aad duubaysaan imika wasaaradda amnigu way la socotaa. ciidamada kale amnigu waa la socodsiinay. dadka waanagan u baahinayna imika inay ogaadaan. waxaan ugu bishaaraynaynaa dadka dhaawac soo gaadhay inaanu jirin, lacageena iyo baanankeena iyo xawaaladaheena inaanu jirin ayaan aaminsanahay. waa sidaan aaminsanahay wey. marka kol haddii taa aynu haysano inay ka digtoonaadaan tan oo kale. raggan oo kale oo aanu hore uga masaafurinay dalkana way jiraan oo iyana way bilihii lasoo dhaafay bay dhacday. waa layna soo sahansaday, laakiin ciidamada waxay ku dadaalayaan sahankaasi inaanu suurtoobin. wixii laga dabacsanaa inaanu suurtoobin. mar kale waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo ciidankii hawshaa galay iyo cid kasta oo daraynaysa oo jecel inay hawshaasi guulaysato ayaan u mahad celinayaa. dadkii nala shaqeeyay ee muwaadiniintana waan u mahad celinayna.